agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeya ayaa waxa uu maanta sheegay inuu beeninayo wararka saxaafadeedka ka soo baxa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kaas oo uu sheegay in laga been abuurto xaaladda cudurka COVID-19 ee ka jirta Somaliland. Wasaaradda caafimaadka Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay 24 saacadood jadwal kaas oo maalmuhu dambeeyay ka soo muuqanayeen Jamhuuriyadda Somaliland oo lagu soo qoray iyada oo halkaasi lagu cadeeyay xaaladda kor u kaca COVID-19 ee Somaliland aad u sareyso. wasiirka caafimaadka Jamhuuriyadda Federaalka Fawziya Abibakar Nuur ayaa waxa ay sheegtay inuu kor u kaca ballaaran ku yimi xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya taas oo ay ku tilmaantay in Somaliland haatan tahay meelaha ugu sareeya iyo gobolka Banaadir. haddaba warkaasi waxa beeniyay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeya oo sheegay in ay been tahay xaaladaasi. Somaliland ayaa iyadu dhinaceeda soo saartay ajende jadwal ay ku qorayeen maalinlaha inta laga baaray inta laga helay halka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya soo saarto table ay ku qoran yihiin inta maalin ee la helay. warkan ayaa hadda waxa soo